arrinta coldoon haddii aan ka hadlo coldoon dadka dulmiga lagu wado ee degaankiisana dulmi uga soo cararay buu ka mid yahay si fiican saan ugu warhayo tuulada lagu qabtayna waa tuulada qoyskoodu deganaa si fiican waa habar yoonis tuulada lagu qabtayna habar yoonis baa degan cid kale Soomaaliya ma degan si fiican degaanka iyo cidda maamulka ka ah iyo cidda u dhalatayna ceeb bay ka tahay arrintaasi ceeb bay nagu tahay baan leeyahay si fiican dad maganta bariya magantu dhex joogi karto sharaf darraduna ay dhibaysa baanu nahay ceeb bay arrintaasi nagu tahay dhinaca jarra ceeb bay ku tahay kulligeenbana ceeb bay nagu tahay baan leeyahay si fiican halka haddaan uga gudbo waan aaminsanahay ciidanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عد كان إذ مقشيي وانين كتير برها برشدة oo yiraahdo waxaan ka soo jeedaa macnii meesha asagu ku tilmaamo ogaadeenaya laakiin anagu aanu aqaano Soomaali galbeed nimankaasi waxa ay ka hadlayaan ninka coldoon ee la xidhay marka waxa ay leeyihiin coldoon waxa laga soo eriyay deegaankiisii marka magan buu inoo ahaa marka ceeb bay inagu ahayd in la xidho asaga oo magan inoo ah haddana waxay ku leeyihiin coldoon wuxuu joogay magaalo habar yoonis oo tuulada laga qabtay ee gaashaamo waa dhul habar yoonis marka sidaa isu qabanaysa yuu coldoon u ahaa yuu coldoon magan u ahaa coldoon waa nin laga qabtay waddankiisii waa nin Ethiopiana waa nin Soomaali Ethiopiana waa nin deegaankaas ka soo jeeda laakiin inankan ka hadlaya waxa uu leeyahay ninkani marti buu ahaa oo ogaadeen iyo marti u ahaa goormay hawdan reserve area ogaadeen iyo noqota goorma ayuu nin habar yoonis gaashaamo marti ku noqday taa waxa kaaga sii daran inankaas wuxuu leeyahay waxay ahayd in la xidho macnii dad kala soo qabsanayo iyo asagii waxa la leeyahay sax bay ahayd in la xidho inuu deegaanka joogo ayaaba khalad ahayd deegaanka inuu gaashaamo joogo ayaa coldoon khalad ba ahaydba bal marka ninka ama qarbi tahare ka yimi ama dhagax buur ka yimi ee mustawaqe maxaan ku idhaahdayay haysta mustawaqe dhagax buura ama mustawaqe qalbi tahare ahayd ninka mustawaqe qalbi maxaan ku idhaahday gaashaamo haysta iyo asagu maxay ku kala duwan yihiin maxaa ninka gaashaamo u dhashayna marti ka dhigay inanka qalbi tahare u dhashay ama dhagax buur u dhashayna muwaadin ka dhigay waxa ka dhigay dadkii dalka u dhashay ee dalka lahaa ayaa ka seexday kuna soo ururay Soomaaliland inankaas wuxuu ku leeyahay macnihi ina cagtar dalkayagiibu dad kale ku soo daayay dalkayagiiba dal kale joogaan waayo dadka kale uu sheegaya ma ninka gaashaamo u dhashay iyo xarishin ayaa soo galayti noqday oo dhulka laga leeyay dadka shanta Soomaaliya u dhashay dhulku waa ka dhaxeeya laakiin adna qalbi taharad ka soo jeeda ama dhagax buur asna gaashaamo ka soo jeeda waa u simanti laba nin oo Ethiopiana baa tihiin marka dambi aanad lahayn dusha ha saaran oo markay Ethiopia nin xidho oran anaga xidhnay sax bay ahayd in la xidho gobolka sidoo u jooga gobolka muxuu ka qabanayaa oo gobolka adigu aad maamusho dawladda ka tahay waa kee
waddanku walaal waa Ethiopia wada Ethiopian baa tihiin inanka gaashaama ku dhashay ka dulcad iyo xarshi ku dhashayna sida aad ugu dhalatay ugu dhashay laakiin daa waxa la yidhi maxay dayo kugu raagtay yadaabaad moodaa dadkii waddankaa lahaa dad yaroo reer baadiye ah mooyaane dee Somaliland bay isku soo shubeen laakiin way iska soo shubayaan nimanka hadda dhulkoodii bay ku noqonayaan waana waajib inay dhulkoodii ku noqdaan annagu waa dadkayagii Somaliland waa nala leeyihiin waa noola dhasheen laakiin waxay leeyihiin waddan kale iyo dal kale dalka iyo waddankaas ayaa tihiin haddaad tihiin dadka ka soo jeeda hawdan Reseferia dalkiini iyo dadkiini waa inaad ku noqotaan macni markaan ku leeyahay ku noqo macnaheedu maaha inaan Somaliland kaa leeyahay laakiin Somaliland waa xaasil weeye laakiin dalka in la dhiso oo dawladda Ethiopia ee aad ka midka tihiin xaqiina ka heshaan waddankiina dhisataan maxaan ku idhaahday waddankiina wadooyin u samaysataan jaamacada ka furtaan dugsiyo hoose iyo dhexe ilaa jaamacada ah ka furtaan annaguna aanu idinla magaalayno weye laakiin in maanta laydidhaa soo gelayti baa tihiin waxa weeyaan lax waliba shalkaysta lagu shidhaya dhibtuna waxay ka timi Somaliland oo inagu guud ahaan dalkii kalaynu lahayn oo dhan intaynu ka soo ururnay ayaynu Hargeysa iyo Burco iyo Berbera ku soo ururnay mana soconayso waxaa la idinka rabaa inaad dalkiina ku noqotaan oo siyaasad lahaataan inanka booliiska idinka ahaado inanka askariga idinka ahaado waddankiina dhistaan wadooyinkiisa dhistaan magaalooyinka dhistaan waddankiina magaalooyinka dhigtaan oo dawladda dhexe ee Ethiopia xaq aad leedihiin aad ka heshaan dad Ethiopiana baa tihiin waa ula simantiin dadka kale nin gayigaba 5% ka ah ayaa kula ogaadeynaya halkee la yidhaa ogaadeynaya ma gaashaama la yidhaa ogaadeynaya ma dulcad iyo xarshin baa la yidhaa ogaadeynaya ta way noqonayaan siday ku socoto way noqonayaan haddii aydan farsamo la imanin haddaydan siyaasadta maanta jirto ka duwan aydan la iman hawd aan Reseferia iska dhaaf inay ogaadeynaya noqdaan Kismaayo noqonayaan tabta Kismaayo halka la mariyay ayaa la marin doonaa haddii aydan farsamo intan ka duwan aydan la imanin Somaliland dadka dhulka ka soo jeeda dadkii xoreeyay way Somaliland waa dalkiini laakiin dal kale leedahay dal labaad ayaa leedihiin dalkaasaa la idinka rabaa in aad maxaan ku idhahdayay u tashataan oo aydan xaq aydin leedihiin xaq aad leedihiin nin kale ismoodsi isku liqin ina coldoon ma aha Somaliland hay buguye laakiin waxa uu ka soo jeedaa uu dhashay gaashaamo waa nin Ethiopiana oo dalka kuula siman inanka caada ka haya idoor hanku kaga dhagow walaalow gaashaamo ka u dhashay xarshinka u dhashay baladhiigka u dhashay sidaad u leedahay dalka ayay u leeyihiin xaqa aad ku leedahay bay ku leeyihiin sheekada koobigaraynta siyaad barre iyo dawladaha Soomaaliya ka jira ina cagjar waa gobormatooraha ismaamulka Soomaaliyeed dawladda Ethiopia ayaad ka mid tahay aan maqlay gabadh uu soo qabtay oo leh halyeeyadii waddanka geesiyadii waddanka ayuu filin ka duubay ayuu kamarad ka duubay
geesiyadu maxay qabteen maxaa la yidhaa geesiyo nin 40 sano xidhka ku jiro iyo timo dheer la baxay oo qoor dheer oo degta qoriga saaray oo sawir iska soo qaada mooye weligiiba ceesaan dilin miyaa geesi la yidhaa day taasi geesinimo idin tahay idinkay idin tahay laakiin waxa keliya haddaynu ka wada hadlaynaa waxa weeye walaalayaalow waddanka intiina ku egaada inta aad leedihiin ha idin deeqdo dhul dad kale ha daydayna inankaas hebel iidoor magaciisa waxaan maay iidoor loo bixin inuu asag magaca iidoorba naga qaadi bay ila tahay aakhirka waayo hoonkaa ka qabsaday iidoorba iidoor ta iidoor ilaahay baa ka dhigay dad maxaanihii karti leh aqoon leh waxna gala waxna guda raggeerida iyo nolosha kala doorta raggunnimada geerida ka doorta weeye walaal iidoor oo dowladdii afrika ugu quwadda weynayd 3 sano gudaheed ku riday markay eliteria dalkeeda qaadanaysay adigu soomaaliyaad ka dagaalamaysa markay etoobiya liicliicaysay ay eliteria ka faa'iidaysatay adigu jubbaland baad qabsanaysa halkay jubbaland ayaad ku dagaalamaysay markaasay ku eegad haddaad halyeey iyo geesiyaal iyo maxaa beladan aad sheeganaysaan iyo ololaftan iyo arrimahani hadday wax qaban karayaan berigaas ay had walaala inaad dalkaaga dhacsato laakiin maad dhacsane soomaali is haysata ayaad ka qayb noqotay waxaad qabsanaysay jubbooyinkaad qabsanaysay ka dagaalamaysa marka hadday halyeynimada iyo jabhadda iyo geesinimadu tahay in soomaalida kale macnihii aad u samaysatay onolaf soomaalida kale taa waa wax caadiya laakiin waxaa taha soomaalidaan u samaysanayo dhulka soomaalidaan ku qabsanayn dhul etoobiya aad ka qabsanaysay ma jirin dhul aad ka qabsatayna ma jirin dhulkaasna bal xaqiiqana anigu waxaan u arkaa taa hadda samaysan baa geesinimo u arkaa inaad isdhiibtaan ayaa geesinimo ah sababtu tahay de wixii dad waxaad doonaysa aad weydo waxaad ka fursan weydaa la yeelaa waxaad ka doonaysa haddaad weydo waxaad ka fursan weydaa la yeelaa marka inay onf isdhiibto oo ay gasho geesiniman qudheeda u arkaa laakiin waan dalkan u dagaalamiyo annagaa u soo dhimana iyo inagaa leh iyo okay yaad laysay markaad soo dagaalantay tuulaheed qabsatay bal waxaad sheegtaa tuulada aad qabsatay aan kuu qiray inaad dagaalantay ilaa maalintan garaadsaday onf baan maqlaayay haddaba walaalo ama onf ahaw ama waxaad doontaa qof soomaaliya baatoo soomaali galbeed ka mid a reer yaroo soomaalida galbeed ka mid a ayaa tihiin dhulkiina ku egaada gaashaamana haw bu-ina gaashaamo dad ba iskale anigu ma ihi habaryoonista hawd laakiin gaashaamo waan ku dhaataa qof kasta oo qabiilkan ku abtirsadaa gaashaamo wuu ku dhaataa marka dhul la qaadi karayo iyo meel jibbooyinka lala simi karayo ma aha walaalo gaashaamo waxaana kaaga ballan qaadaya inaanu magaalayno inay dadkaasi xaqooda ka helaan dowladooda iyo dadkooda dowladda etoobiya ay ka midka yihiin inay xaqooda ka helaan ayaan kaaga ballan qaadaya haddaad isdhacsiisay nin ogaadeena baa meesha gabarmatoore ka ah annagu ma diidanin dadka soomaaliyeed haddaanu anagu ummadda reer somaliland nahay waxaanu aaminsanay ummadda soomaaliyeed shanta soomaaliya ummadda soomaaliyeed ay ku wada noolaan karto qasabna tahay in lagu wada noolaan meel geyga soomaalida ka tirsan oo reer u gaar u leeyahay ma jiro tan aad la wareegayso idoorlandna walaala annagaa bixin lahayn idoorland haddaanu doonayno inaanu meel idoor ku sheegno annagaa bixin lahayn laakiin damiirku nama siinayo dad soomaaliyeed baa dalka nala leh
laakiin dee ha nagu raad gadanin haddaad doonayso inaad samayso meel ogaadeen iyo la yidhaahdo annaga ha nagu raad gadanin adigu badheedh oo xataa dalka cid kale waxba ugama ogolin ogaadeen iyaa la yidhaahdo ana iskale laakiin idoorland halkee la yidhaa idoor reer baa la yidhaa reer aanu annagaa ku abtirsana idoor laakiin meel idoor laan la yidhaahdo ma jirto laakiin sababta ad u bixinaysa adigu waan garanayaayo taadaad ku meel marinaysaa dal soomaali ka dhaxeeya oo shanta soomaaliyeed ummadda ka dhalatay ka dhaxeeya ayaad doonaysa inaad ogaadeen ku qorto laakiin waxa caqliga gelaya maaha qalbirtahariya dhagax buur baad leedahay ku egow inaad maamusho dalka inaad macnihii aad ciidan ka ahaato inaad madaxweyne ka ahaato gabar matoore ka ahaato madaxweyne Itoobiya mare ra'iisul wasaare leedahay ra'iisul wasaaruhu oo nin Oromaa maamulkana dee inanka aad ku abtirsanaysa la boodboodaysa gabar matooru ka yahay ciduu qaban karo xid hebel qaba hebel door qabo walaalo idoor dalkoodii iyo dadkoodii bay joogaan dawlad Itoobiya la yiraahdo baa ka mas'uula haddaad kibir kula kacdo dawladdaas siday inankii yaraa shalayto maxaan ku idhaahdaa madaxweynahaagii hore afar inan yaro is xoojinaya hareeraha uga raaceen inaad qashar ugu ridin ayaa san hareeraha looga raacaya hadduu ummadda akhlaaq iyo iimaanku iyo basar iyo samac ku dhiqi waayo dalka Itoobiya waa loo simay waynu ku wada dhalana inanka baryoonisa gaashamo ku dhashay inanka bar jecle balidhi ku dhashay inanka bar awale maxaan ku dhahay durcad iyo xarshin ku dhashay way kula siman yihiin meel aad kaligaa leedahay iyo meel aad yeeran kartaa toona ma jirto dhagax bur iyo qalbi taar aad leedahay marka haddaad qalbi taar iyo dhagax bur goosanaysa aday kuu taa laakiin gaashaamay durcad iyo xarshin kama talin kartid walaa waad ka talin kartaa adoo Soomaaliya ayaad ka talin kartaa adoo Soomaali galbeed iyo ummadda Soomaali galbeed oo dhan danteeda ka talinaya ayaad ka talin kartaa laakiin dhul aad leedahay waxaad tidhi dad baa yimi oo baasabooro guranaya ma baasaboor ogaadeen iyo ku qorantaa laga bixiyaa Itoobiya muxuu yahay baasaboorka aad sheegaysaa baasaboorka inanka gaashaamo qaato inanka gaashaamo u dhashay baasaboorku qaato waxaa ku qoran in Itoobiyaan oo gaashaamo u dhashay ogaadeen kuma qorna kumana qabraan doonto dadka Soomaalida qaarkood waxaad moodaa inaan dawladnimo loogu talagelin ma xejin karaan haddii mas'uul lagu saaro oo aad mas'uul lagaa dhigo waa inaad garbaad ku qaada yeelataa laakiin dadka Soomaalida qaarkood waxaad moodaa inaan taa looba abuurin maalintay wax yar helaan hadda afar qori isla helaan halka reerka Soomaalida kale ugu dhow joog ayay ku dhaqaajinayaan dhul ogaadeen la yiraahdo ma jirto walaalo dad Soomaali galbeed baa jira gabalada meeshaad ogaadeen ku sheegaysa iyo meeshaad habar yoonis iyo ciidan gale aad leedahay baasaboorada ka qaadanina xafiiska ogaadeen leeyahay baasaboorada laga bixiyo adaa noo sheegi doona dadkaasi waxay ku qaataan sharcigooda inay yihiin muwaadiniin Itoobiyaan laakiin dalkooda dayacnaan baa ka muuqata waxaa ka muuqata dadkoodii aqoonta lahaa dadkoodii wax bartay intiba waxay joogaan Somaliland laakiin Somaliland dee waa dhul gacantaada ku jira waxa loo baahan yahay in la dhiso dalka kale hadda annaguna ballan baanu idinka qaadayna inaanu idinla dhisno inaanu idinla magaaleyno inaanu idinla difaacnaba difaacan ka hadlaya qori iyo xabad maaha Soomaalidu haddii la hadloba waxa weeye waxba la isku diraya waxba dagaal baa la kicinaya hadda adigu hadal qof yiri ku dagaalamaysa aday ku tahay
laakiin waxaan ka hadlayaa anigu iyo difaaca aan ka sheegaya ka hadlayaa waxa weeye inaad waddankiina xaqa aad ku leediin aad ka heshaan dalkiina iyo dadkiinana aad dhistaan ciidamada dalka ah ka qayb ahaataan booliiska ah ka qayb ahaataan dowladda ah ka codsataan in gaashaamo daroor dhooba guduud iyo meel kasta oo kale aad degan tihiinba in dugsiyo sare iyo dugsiyo hoose laga dhiso dadkiinana dejisaan ciidanka inaad qaybtiina lahaataan laakiin haddaad somaliland iska wada fadhiisataan dabeetana markuu mid idinka ihi soo noqdo waddankiisii laydin yidhaahda soo galaytuu ahaa marti buu ahaa martida yaan la dhibin ina coldoon baa gaashaamo laleeyahay marti buu ka yahay